maayarka caasimadda Hargeysa iyo golihiisa cusub ee deegaanku maxay ku soo kordhiyeen magaala madaxda Soomaaliland ee Hargeysa waa arintaynu ku eegayno barnaamijkeena kan magaalada Hargeysa waa magaala madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad dastuurka qaranka Soomaaliland sidoo kale waa magaalada ugu weyn guud ahaan dalka Soomaaliland iyadoo sidaas si la mid ah sanadihii afartameeyadii ay boqortooyadii Ingiriiska ee dalkan xukumi jirtay ay magaalada Hargeysa ka dhigatay magaala madaxdii dhulkii British Somaliland Protectorate loo oran jiray oo imikana ah Jamhuuriyadda Soomaaliland kasta oo xilligii la aasaasay aan warar sugan laga haynin haddana waxa loo badan yahay in magaalada Hargeysa ay jirtay imika muddo qarniyo badh ku dhow waxaana taasi ka maraga muuqaalka sawirkan inoo muuqda oo tilmaamaya sariibad ay haweenku ku ganacsan jireen sanadihii 1880 waa muddo haatan laga joogo ilaa 130 sannadood dhinaca cimilada Hargeysa waxay ku taallaa dhul buuralaya waxaana joog ahaan heerka badda ka sarreysa qiyaas gaadhaysa 1334 mitir oo u dhiganta 4377 fuud jawi ahaan ma laha kulayl badan oo joogta ah mana laha qabow raaga oo ku dhiba tusaale ahaan bilaha Abriil ilaa Juun oo ah xilliga ugu kulul ayaa maalinta ay ugu kul badan tahay waxa heerkulka Hargeysa u gaaraa 35 digrii oo centigrade halka bilaha December iyo January oo ah kuwa ugu qabow uu habeenkii heerkulkeedu gaaro 10 digrii oo centigrade xaddiga roobka ee ay hesho Hargeysa ayaa lagu qiyaasaa 440 millimeter iyada oo celcelis ahaan sanadkii roobku uu ku da'o 44 maalmood oo ka mid ah labada xilli roobaad inkasta oo tirakoob rasmi ah aan weli lahayn haddana waxa lagu qiyaasaa dadka ku soo hoyda Hargeysa in ay gaarayaan ilaa 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof dhinaca maamulka ayay magaalada Hargeysa waxay soo martay marxalado kala duwan muddadii u dhaxaysay 1960 ilaa 1969 waxa maamulayay maayaro iyo kawnsilo ku yimaada doorashadii axsaabta badan hase ahaatee 1969 markii xukunkii military uu dalka inqilaabka ku qabsaday ayaa waxaa la tirtiray hanaankii xisbiyada badan waxaana jiray maayaro la soo magacaabo oo aan lahayn golayaal degaan haddaba markii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay madax banaanadeeda la soo noqotay ayaa muddo kadib waxa loo codeeyay dastuurka qaranka Soomaaliland kaasi oo jideynaya soo celintii hanaankii axsaabta badan haddaba iyadoo arrintaasi laga duulayo ayaa sanadkii 2002 doorashooyinkii ugu horeeyay golaha deegaanka ayaa guud ahaan dalka Soomaaliland laga hirgeliyay doorashadaasi ayaa waxay ahayd mid aan toos loo soo dooranayn xubinta deegaanka balse xisbiyadu ay habka liiska ku tartamayeen hase ahaatee doorashadii labaad ee Soomaaliland ee dhinaca deegaanada ayaa sanadkii 2012 toos looga hirgeliyay Soomaaliland sida magaalooyinka kale ayaa Hargeysana waxay dooratay xubnaheedii golaha deegaanka kuwaasi oo dhamma 25 xubnood waxay markii ugu horeysay markaa ay maayar u doorteen Allah ha u naxariistee injineer Yuusuf Warsame Siciid oo ahaa waayeelkii ugu da'weynaa golaha waqtigaasi isla markaasina la bidayay inuu ugu aqoon badnaa halka maayar ku-xigeenkana looga doortay Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne oo ka mid ahaa dhalinyarada ku soo baxday doorashadii golaha deegaanka ee Hargeysa ilaa iminkana ah maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa waxaanu galnay fadhigii ugu horeeyay golaha deegaanka Hargeysa laakiinse waxa weeyaan
waxaan naloo diray magaalo caasimada oo bilic leh oo u eeg adduunyada caasimada adduunyada ayaanu anagu tantahay ay tahay hawshaanu doonaynaa. allah u naxariistee yuusuf farsame siciid muddo yar kadib ayaa uu geeriyooday. waxaa markaasi noqday maayarkii labaad ee loo doortay caasimadda hargeysa muddaxileedka golaha deegaanka ee cusub cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko, iyada oo golaha deegaanku ay xilka maayarnimada uga dhex doorteen 14 abriil 2013. waxaa u sharaxnaaday duqa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid cabdiraxmaan solteelko. horta yaa la tartamaya cabdiraxmaan yaa u codeeyey inuu noqdo duqa caasimadda yaa ka aamusay yaa diiday cabdiraxmaan maxamuud caydiid. waxa maanta halkan lagu doortay oo 14 bishii afraad ee 2013 duqii caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo saacadan laga bilaabo ah cabdiraxmaan maxamuud caydiid cabdiraxmaan solteelko. haddaba tan iyo muddadaasi cabdiraxmaan maxamuud caydiidi oo hogaaminaya golihiisa deegaanka ayaa waxa uu ku soo kordhiyey caasimadda Soomaaliland ee hargeysa horumar weyn oo la taaban karo si weyna looga dareemay muuqaalka magaalada hargeysa. jidadku waxa ay qayb libaax leh ka qaataan isku socodka dadka iyo gaadiidka, sidoo kalena waxay astaan u yihiin bilicda iyo horumarka ay magaalo leedahay. haddaba inkasta oo golihii hore ee deegaanka ee caasimadda hargeysa ee 2 sano ka hor xilka wareejiyey ay dadaal badan ka sameeyeen dhinaca waddooyinka, haddana weli wadda xumaanta iyo burburka jidadka ka muuqday aad bay u badnaayeen markii golahan cusub ee deegaanku ay la wareegeen baaxadda iyo korarhka magaalada awgeed. haddaba maayarka cusub ahna guddoomiyaha golaha deegaanka caasimadda hargeysa iyo golihiisa deegaanka ee cusubi maxay ka qabteen baahidii dhinaca jidadka ee taagneed markay la wareegeen? imise jid ayayse ku soo kordhiyeen caasimadda Soomaaliland ee hargeysa? waddooyinka dhowr nooc baa loo sameeyaa. waddada dhexe hargeysa had iyo jeer waxaad arki jirtay iyada oo muxuu ahaa marba dib loo samaynayo oo ay aada u googo-an yihiin, sida loo maraa ay adag tahay. waddadaasi waxaanu ka soo qaadnay koonaha bari magaalada Halaya markaad muxuu ahaa joogto kaah ilaa meel u jirtaa 5 kilomitir bari ka xigta. waddadaasoo waddo dheera waxaanu ka dhignay waddo muxuu ahaa aan muddo sanado badan aan isbedeli doonin, waddo fiicana waddooyinka standardka caalamiga loo sameeyo. waddadaasoo muxuu ahaa ilaa 17 kilomitir waanu sameynay. waxaanu sameynay waxaa jira mashruuc dadweynaha ay iska kaashadaan iyo dawladda hoose, taana waxaanu ku sameynay waddooyin badan. tusaale ahaan markaan ka soo qaado xaafadda maxamuud haybe kilomitir iyo badh kaga bilaabma bridgeka ina mooge maxamed mooge, khaasatan xaafadda maxamed mooge, waddada Adamis oo 800 mitir, waddada Saylada oo hadda gacanta lagu hayo, Axmed Dhagax markaad u timaado xaafadda Axmed Dhagax waxaanu ka sameynay 3 waddo oo min kilomitir iyo 2 kilomitir iyo 1 kilomitir iyo badh oo masallaha ka bilaabma maxamuud haybe afkeeda una socdaa xagga galbeed. waxaanu sameynay 2 kilomitir oo waddada Siinay aan ku kordhinay, waddadaasoo isku xidhaysa waddada Belegubadle iyo Hargeysa isku xidhaysa ah. waxaanu ka sameynay degmada 31 May waddada jaamacadda oo aanu sameynay iyadana 1 kilomitir. degmada Ibraahim Koodbuur waxaanu ka sameynay waddada Mansoor ka baxday ilaa Sheedaha 1 kilomitir. waddada Guuleed ilaa Sunshine dhinaca galbeedna u leexataa oo tagtaa waddada Jigjiga ku dhacda waa kilomitir iyo badh. waddada labada degmo u dhaxaysa Koodbuur iyo Juun
oo half kilomitir ah markaan juun u galo waddada ka bilaabantay istaanka Jabuuti ilaa beerta Ilmo Shuraac oo 2 kilomitir balladkeeduna uu yahay 10 mitir markaan u socono xagga gacan libaax waxaanu ka sameynay iyadana wadada 2 kilomitir iyo badh oo xabaalaha u socota sheekmada ka tagta xabaalahana gasha daamina u leexata wadadaasi iyo wadada 150 oo 2 kilomitir dowladda hoose ayaa gebi ahaanba bixisay iyaguna waxa jira wadooyinka mashaariicda JLBG-ga ku jira oo ah wadada iminka 3 degmo kala talowda Gawdor Juun iyo gacan libaax wadadaasi waxaanu ka sameynay mashruuca JLBG-da wadooyin kalena hadda way socdaan oo gacanta lagu hayaa wadooyinka aadka u muhiimka ah ee ay qabatay dawladda hoose ee Hargeysa iyo golaheeda deegaanku waxaa ka mid ah sida aynu soo aragnay jidka isku gudubka ah ee isaga talaaba 3 degmo ee Ibraahim Koodbuur 26 Juun iyo gacan libaax oo si weyn u sahlay isku socodka magaalada gudaheeda habka casriga ah ee wadada bartamaha Hargeysa loo dhisay ayaa ah mid wax weyn ka taraya cimriga wadada iyadoo oo wadadaasi ah nooca roogga loo yaqaan ay meelihii ugu horeeyay ee la dhigay ka soo wareegtay muddo 2 sano ka badan haddana weli ma ay dhaqaaqin haddaba markii la arkay faa'iidada wadooyinka noocan ay leeyihiin ayaa maayirka caasimadda Hargeysa iyo golihiisa deegaanku waxay go'aansadeen sii fidinta wadooyinka noocan oo kala ah waxaana ay dhawaan dawladda hoose Hargeysa ay bilowday wajigii labaad ee wadada wadnaha gaar ahaana dhinaca xigta galbeedka caasimadda iyadoo talabada tan ku xigtana ay sheegeen in laamida roog ah la saari doono wadada weyn ee ka timaada garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa isla markaasina ay soo wadi doonaan ilaa saldhigga dhexe maanta halkan waxaanu ka bilownay wadada wadnaha intii ka qabyada ahayd sanadkii hore intii aanu sameynay oo ka bilaabmaysa goolada Jigjigaye ilaa buurta kala jeexan halkaas oo qiyaastii 4 kilomitir wadadaasi oo imka tan shaqadii ka socoto muddo ku dhamaan doonto 7 waxaa ku xigi doonta wadadii airportka oo iyaduna bilaabi doonta saldhigga dhexe ilaa airportka waxaan leeyahay dadweynaha halkan degan wadada hooyada من halka goolada ilaa halkaasi waa inay dhaqso uga guuraan waxyaabaha kale ee golaha deegaanka ee Hargeysa uu ku guuleystay waxaa ka mid ah boondooyin iyo biriijiyo nooca loo yaqaan Irish Crosska kuwaasi oo qaarna la dhameystiray qaarna ay wali socdaan waxaana biriijyada nooca loo yaqaan Irish Cross ee dhamaaday ka mid ah biriijka 100 jire sidoo kale boondooyinka la dhameystiray waxaa ka mid ah boondada Maxamed Buuge boondada xaafadda Macallin Haaruun iyo boondada degmada Axmed Dhagax kuwa wali hawlahoodu socdaan waxaa ka mid ah biriijka jajabka sidoo kale boondooyinka magaalo Ugaaso carab baydhay iyo kalawle oo iyana hawshooda lagu jiro jidadka tirada badan ee golaha deegaanku ay sameeyeen ayaa waxa ay noqdeen kuwo shacbigu ay si weyn ugu diirsadaan sidoo kale waxay arrintani ay soo jeedatay waa dhinaca dhismaha jidadka marka laga hadlayo indhaha dawladda dhexe ee Soomaaliland iyadoo qaar ka mid ah wadooyinka tirada badan ee dawladda hoose ay ka sameysay magaalada Hargeysa ay xariga uga jareen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyada oo wadooyinka u dambeeyay ee dawladda hoose Hargeysa ay sameysay ee uu xariga ka jiray madaxweyne ku-xigeenku ay ka mid yihiin 3 wado oo muhiim ah oo ku kala yaala degmooyinka Ibraahim Koodbuur 26 Juun iyo Axmed Dhagax iyadoo wadooyinka ay ka mid yihiin noocyada ay iska kaashadaan dadweynaha
iyo dowladda hoose. madaxweyne ku-xigeen waddadan waxay isku xidhaa oo ay taraafiga ka qaadaysaa muxuu ahaa waddada koowaad ee jigjigeeya oo marka waddadan la maro waxay u dhaxaysaa labada waddo guuleed hortiisa ilaa waddadii xeraawo ta labaadina waxay muhiimad u leedahay hotel mansoor marka laga baxo in jidka 150 laga leexan karo oo dusha laga mari karo magaalada ciddii doontaana toos uga bixi karto. wala socotaanoo maanta Hargeysa daan walba la marayba sidee ahaan jirtay maantana inuu gaarigii dhibta ku qabay dhagaxa iyo dhibaatada maarteen wada xumada maanta surun kastaba uu kalaabayo waxaan ku dhiirigelinaa ama ku boorinayaa dan madaxda qaranka nahay in dawladda hoose ay wixii ay dad ka qaadaan ku celiyaan dadweynaha la kaashadaan taasi waa tahay noo keentay maanta in tartan magaalada ku dhexdeeda lagu tartamo horumarka lagu tartamo. waddadani ayaa iyana noqonaysaa waddada saddexaad ee isla maalintaasi uu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland uu xariga ka jaray taasi oo ku taala degmada Axmed Dhagax. maanta waxaa noo farxada meeyarku dhagax uu noo dhigay 1 kiiloomitir buu noo dhigay wanaka 1 kiiloomitir sameynay annagii dawladda hoose iska kaashanay dadweynaha reer Axmed Dhagax iyo dawladda hoose si fiican ay noo caawisay dhagaxii kalena ku noo dhigayaa. waddooyinka kale ee iyana dhawaan xariga laga jaray ee mas'uuliyiinta sarsare ee Soomaaliland ay xariga ka jareen waxaa ka mid ah 2 jid oo iyana laga hirgeliyey degmada 26 Juun kuwaasi oo marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamina Waris Sheekh Maxamuud Jirde ay xariga ka jirtay. mashaariicda kulay dawladda hoose ay caasimada ka qabatay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 10 maaha waddooyinkaanu dhisnayna runaantii intii 10 sanood golay hore ay dhisayeen sanad baan ku qabanay marka waxa weeyaan waa mashruuciyo kulay farikamo qodna mashaariicda aynu wadno aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa odayaasha xaafadaha oo xaafadana kaliya maaha xaafado fara badan oo waddooyinka dadweynaha ka qayb qaateen baa jira waxaan ku soo dhaweyn doonaa maayirka caasimadda hadda waxaan furnay waddo 2 kiiloomitir ah waddadana waa 500 mitir waxay ka bilaabaysaa jidka 150 waqooyigeena uga kacaysaa waana waddada labada degmo u dhaxaysa waxay ka mid tahay siyaasadda qaranka ee madaxweynuhu hogaaminayo ee in waddooyinka la sameeyo aad baan wanaagsantii ku soo dhawow marwo gacmo wada jir bay wax ku gooyeen baa la yiri waddooyin baynu dhisannayno magaaladii ku qarqinay run haddii la doonayo marka wax la wada qabsado gacmaha la isqabsado uuraa la jafi karaa. alxamdulilah rabbil caalamiin dadweynaha xaafadana aad baan ugu mahadnaqayaa dadweyne sharaf la weeye gudiduna hawl fiican bay wadaa ilaahay ha idinka jazaysay. geesta kale kharashka ku baxa samaynta jidadku ma aha mid sahlan sidaasi awgeed si ay Hargeysa u hesho jidad heer caalami ah sida kan bartamaha caasimadda Hargeysa umaro oo kale isla markaasina loo yarayo kharashka tirada badan ee dawladda hoose kaga baxa waddooyinka ayaa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxay dhawaan ansixiyeen mashruuc ballaaran oo lagu soo iibinayo dhammaan qalabkii dhismaha waddooyinka gaar ahaan jidadka casriga ah ee cagafta lagu dhigo kaasi oo wax weyn ku soo kordhin doona magaalada madaxda Soomaaliland marka qalabkaasi oo dhammaystirani uu dhawaan soo gaaro magaalada Hargeysa. waxa noogu jira sanadkan miisaanida qalab dhan oo kaambileeda oo intii wadda samaynaysa oo karaksharkii leh cagafyadii leh tireedharadii leh buldowsaradii leh baabuurtii leh mijiinadii leh leydhkii leh booydihii leh wax walba leh oo nagu talagalay Hargeysa markii wadda ka dheregto in waddanka intiisa kala deedatana ay wax kaga qabanno weli. waxaa kale oo jira qorshe ku wajahan kordhinta jidadka caasimadda oo la filayo mustaqbalka dhow in laga hirgeliyo magaalada Hargeysa. runtii waddooyinka laba shayba way qorshaysan yihiin waddada airportka ka soo baxda oo muraayada oo inaan waddo asfala ka dhigno koow way qorshaysan tahay waddada labaad ee caasimadda oo ka timaada aqalkii hidiye dhaqanka ilaa guuleed hotel waddadaas oo iyadana aan asfal ka dhigno afarhaada labaduba waa mid afarhaada way qorshaysan yihiin waddada Mansoor ilaa Togdheer ka dhaadhacda oo iyaduna laba haada saddexdaa waddaba inaanu asfal ka dhignaa qorshaysan
waxaa qorshaysan waddo iyo dariif ka tallaabaya xaafadda axmed dhagax iskuna xidhaya inuu saddexdan degmo kale sida isugu xidhay wadadan jiiftaa in waddo kaloo jiifta halkaa mintaliska bilayska ilaa saylada xoolaha fayska koowaad inaanu isku xidhno way qorshaysan tahay iyadoo aan wadooyinka kale xaafadahana hadday noqoto mid waa wadooyinkan kuwan ka hadlay laamiga samaysan waxaa jira wadooyin badan oonu banaynay oo jidcadayaala waxaa ka mid ah wadada 150 oo 2 kiiloomitir aanu samayno mooye wadada halkay kaga dhacdo laamida berbera ilaa halkay kaga dhacdo muxuu ahaayay laamida gabiley aanu isgaarsiinay iminkana waxaa noo diyaara wadooyin ay community-ga iyo ka wada qayb qaadanayaan dowladda hoose horumarka weyn ee mayor soltelco iyo golihiisa deegaanku ay soo kordhiyeen waxaa ka mid ah gaadiidka debdemiska oo baahin weyn loo qabay maadaama aanay magaaladu hore u lahayn wax debdemisa oo la sheegi karo waxaana hawshan debdemiska iska kaashaday dowladda hoose iyo weliba dowladda dhexe ee Soomaaliland oo guntiga dhiisha isaga dhigay sidii magaalada Hargeysa oo maalinba maalinta ka dambaysa sii balaaranaysa tirada dadku ay sii badanayaan cidhiidhiguna uu sii badanayo oo marka dab meel uu ka kaco khasaare badan gaari jiray arrintaasi looga bogsan lahaa sidaa daraaddeed golaha cusub ee deegaanka oo kaashanaya guddiga bilicda caasimadda Hargeysa oo ah guddi ay ku jiraan mas'uuliyiin sare oo ilaa heer qaran ah ganacsato siyaasiyiin salaadiin iyo aqoon-yahano kale ayaa waxay ka fikireen sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda debdemisyaantu ay ku hayso magaalada Hargeysa waxaana la isugu yimi kulanadii ugu horreeyey haddaba sidee ayay u dhaqaaqday hawsha debdemisku halkeese laga bilaabay marka nabadgelyo badan oo lagu tala seegay inuu saasoon ku eegno arrintu maaha waxa la gartay marka in la bilaabo mashruuc debdemis ah oo ay magaaladu yeelato oo meel santara oo maxaan ku raacay lagu soo hagaagale oo gaadiid badan oo ku filan magaalada loo iibiyo oo shaqaalihii maxaan ku raacay ma ciidankii tababarnaa ee shaqada qabanayay loo sameeyo sida adduunka oo ila mid noqoto caasimada adduunka sida maxaan ku raacay loola dhaqmo oo kale inaguna u dhaqanno marka mashruuca bilowgiisa oo maanta isugu nimi runtii golaha deegaanka markii aanu wada hadalay kalfadhiyadii ugu horeysay waxaanu isla qaadanay in magaalada Hargeysa ay dab ku dul fadhido loona baahan yahay mashruuc debdemis in la sameeyo mashruuca debdemis oo noqon doona dhow fays waxaanu hirgelinay fayskii koowaad anigoo mahad uga celinayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lacag qaadaan oo fiican caasimadda uu tabarucay iyo wasiiradii ka shaqeeyay wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha anagu dowlad hoose ahaan dhaqaalaha u diyaarinay labadii dhaqaala la isku daray waxa la soo iibiyay gaadiid ilaa 8 xaba waxa la soo iibiyay funta oo inaan hore isticmaali jirin iminka kaalin haday gubato meel dawooyin yaalaan haday gubtaan waxaanu qaadanay shaqaale aad u tiro badan shaqaalahaas oo ku qaadanay mushahar aan ahayn ka dowladda hoose waayo qofkani wuxuu ka shaqeynayaa dab waxaan u baahan yahay inuu mushahar fiican qaato waxaan u qaybinay 3 shifti qolaba 8 saacadood bay shaqeysaa 24 saacadood iminka hadaad soo garaacdo waxa weeyaan waxaad helaysaa cid dabka ka gurmato oo dhaqso ah intaasi kadib ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu soo saaray wareegto lagu aasaasayo ciidanka debdemiska iyadoo maayirka caasimadda iyo mas'uuliyiin sarsare oo xukuumadda ka tirsanina ay dhagax dhigeen xaruntii debdemiska ee ciidankaas uu yeelan lahaa muddadii la hirgeliyey ciidankaasi debdemiska wax weyn ayay ku soo kordhiyeen dalka siiba caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana si weyn hoos ugu dhacay khasaarihii ka dhalan jiray dabka kolba meel ka kaca waxaan leenahay ka codsanaynaa dadweynaha ku ganacsada labadaas suuqa
inay baneeyeen wadooyinkii loo soo mari lahaa gurmadka gaadiidka dardabasku soo mari lahaa saa kale ilaahaynu ku mahadinaa inaynu dabkaa baktino ku guulaysanay iyadoo khasaaradeenu dhicin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa aad iyo aad u mahadsan dardamiska caasimada arrintii halkaa ka dhacday ee suuqa gobonimo ka dhacday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dab badan baa ka dhacay dabkii ku jiray oo 4 dab gobonimo ku jiraan oo 4tii dab markiiba si hagarsamiya loo jaray xarunta dabdamiska ayaa iyo dhismaheedu iminka uu ku dhow yahay mid gebagaba anigoo soo arkay faaristashinada qurbaha maanta waxaan aad iyo aad ugu nisamahay amba aan ku faani karno station aan maanta dhisannay dalal badan ayaynu aad uga fiicannahay marka waxaan leeyahay guul baynu gaadhnay insha allah halkaas laga sii wadi doonaa maayirku uu guntaday inuu caasimadda u sameeyo dabdamis lagu naaloodo oo baktiya oo sidaad ogtihiin sanadka ayna dhaafay waxaanu bilownay bishii 5aad ilaa bishii 12aad waxaa dab qabsaday 148 dab baa la baktiyey oo Hargeysa uun ka dhacay intanaynu joognana waxa weeye labada bilood ay markayna dhaafay 50 bay saraf dhaaftay kolka walaalayaal waxa weeye waynu guban jiray waa la dhiman jiray hantiya moodba way tagi jireen maanta waxa muuqanaysa meel alla meeshii wax ka bilaabanaanba in degdeg loo baktinayo oo in hubkeedii haysano oo in dadkeedii haysano oo loo tababaray rag aad arkaysaan ee jabsan magaalada Hargeysa oo marba marka ka dambaysa sii balaaranaysa iyo tirada dadka oo si aan qiyaas ahayn u sii kordhaya ayaa taas waxay keentay qiimaha dhulka oo si weyn sare ugu kacay waxa kale oo taasi barbar socday murano xoogan oo joogto ah oo mar walba ka yimaada dhibaatooyinka dhinaca dhulka taasi oo soconaysay tan iyo markii dalka dib loo soo galay iyo waliba ilaa waqtiyadan aynu joognaba haddaba golaha cusub ee deegaanka ee caasimadda Hargeysa markii ay xilka qabteen intee ayaa ay leekaydii baaxadda mushkiladda dhulku xaaladda markaa dhulka taagneed maalin walba dhulka waxa ka dhici jirtay dhibaatooyin fara badan xaaladii waqtigaa taagneed maalin walba dee qof baa oranaya dhulka ku dhimanayo waaligii bari waa tii la isku dili jiray la isku haysto sideedaba Somaliland marka la yiraahdo dhulku uu hawl badan gaar ahaan Hargeysa way ka sii rabshad badan tahay oo waa caasimadda iyo value dhulka oo sareeya daraadeed baa wuxuu keenay dhibaatooyin iyo mushkilado fara badan runtii qolooyinkii naga horeeyayna dadaal badan bay soo wadeen meel fiican bay soo gaarsiiyeen annaguna halkii aan markaanu nimi waxaanu ka sii qaadnay halkii aan ugu nimi waxa jiray runtii caqabado badan oo yaalay baa jiray waxa jiray dad badan oo abuurayay dhibaatada ayaa jiray iyaga laftigooda oo sameynayay maadaama mas'uuliyiintaasu ay ka dhawaajiyeen in dhibaato badani jirtay dariiq sidee ah ayay u mareen yarayntii dhibaatada dhulka runtii anigu sida aan filayo waxa aanu wax badan baanu ka bedelay dhulka dacwadihiisii dhibaatooyinkiisii ishaysadkiisii fara badnaa inkastoo sidaan anagu isu macaashinaanay ahayn dadku ay dareemayaan oo dee bulshada sheegi doontaa wixii marka hore jiri jirayna way ogaayeen maanta waxa jirana way ogyihiin laakiin runtii anagu dadaal fara badan ayaanu ka samaynay dhulka oo dacwado fara badan oo dadku isku hayeen sulux baan ku dhamaynay qorshaha dhulka wax badan baan ka bedelay shaqaalaha iyo agaasimayaasha dhulka iyo xafiiskoodiiba sida dee qaabkay ahaan jiray iyo qaabkay maanta yihiin faraqa u dhexeeya qof kasta u dareemaya beero waloo danta guud laga jaro way noo liistaysayiin dantii guud aan ka jarra wax dee bulshadaanu dejinoo degan oo aanu u raray waxna bulshadaanu siinoo dhul ahaan baanu bixiyo sharciga dee xeertoon tiri baa qoraya dee qofka muwaadina dhul la siin karo wasaarad kasta oo wasaaradaha xukuumadda ka mid ah ee wasaaradaha ay u qaybsantay dhammaanteed mid kasta wax naga quseeyaan dhul waxay u baahantay waanu haynaa haddii ay u baahato saacadday u baahatana gacantana ka saaran laakiin wax badan baa iska bedesheen baan anigu aaminsanahay runtii waxaanu ka saaray meesha dadkii horta mukhalasiinta ahaa waa koow waanu ka saaray waxaa kaloonu ka saaray dadkii kale dilaaliinta ahaa ee ganacsiga dhulka ka shaqaynayay ee dowladda hoose dhulkeeda inay kala iibiyaan ama isku wareejiyaan ka shaqaynayay waxaanu yaraynay walaal
muranadii dhulka ee jiray ayaanu soo yaraynoonu afjarray annaga oo markaanu eegno dadku siday yihiin ama ay isku haystaan haddii ay tahay arrintoodu arrin culus oo u baahan in laga garnaqo aanu toos ugu gudbino maxkamadaha oo aanaan jactadin oo aanaan haynin cabashada dadku ay ka cabanayeen sheegi jireen waxay ahayd in la jactadiyo oo macna dhinacnaba aan loo wadin oo ku jactadaan oo deedana ku dhibtoodaan wixii fudud ee walaal u baahan in wax la kala yiraahdo ama meel loo kala tilmaamana waanu kala diraa waanu kala tilmaanaa wixii u baahan farsamo ee iska soo gala si technical ahaan waxaanu u diraa guddiga farsamada ayaa toos loogu diraa runtii marka la eego dhibaatooyinkaas oo kale ama caqabadaha noocaas oo kale inteedii badnayd waanu xalinay waananu runtii wixii aanu arkaynay in xal laga gaadho xal baanu ka gaadhnay waxaa kale oo yaraynta dhibaatada dhulka qayb ka qaatay hagaajinta xafiiska qorshaynta iyo fidinta qorshaha magaalada sidoo kalena samaynta dhul dan guud ah oo laga hirgeliyey iskuullo mchyo iyo garoomaye wixii la mida ayaayna dhibaatadaasi yaraysay runtii mashaakilka dhulku marka ka dambaysa hoos buu sii dhacayay waxaanu samaynay in xafiiska qorshaynta dhulka aanu hagaajino dadkana aanu u samayno system si aan u ogaano qofkii dhulka iibiyey iyo qofkii laga iibsaday inuu yahay qofkii lahaa inkastoo dadweynuhu khaladaad ay gelayaan oo iyagoon dowladda hoose ayna soo marin ay iibsanayaan dhulka taasina ay mararka qaar keeni karto inay mushkiladi ka timaado qof aan lahayniba ka iibiyo laakiin waxaanu samaynay inaanu qorshihii koobno xadidno dhul badan oo badan aan la sii qorshayn inaanu dhulka intii la qorsheeyey aanu ka samayno garoomo badan aan uga jirno iyo iskuullo iyo mchyo iyo muxuu ahaa meelaha ay dadku ku kulmaan tusaale ahaan waxaan meelaha qaar u xidhnay public park inay noqoto hadhow oo la beero oo laga shaqeeyo waxaa kale oo jira sharci iminka golaha deegaanku wadaan oo la filayo in marka la ansixiyo uu wax weyn ka tari doono muranadii dhinaca dhulka ka jiray intaa anagu aanu joognay ee meesha hawsha aanu joognay waxaanu wadnay daraasad sidii dhibaatada jirta lafteeda sharciga loogu dabaqi lahaa ayaanu iyadana wadnay taasi iminka waxaa noo socdaa sharci qabyo qoraal ah baa noo socda isaguna oo khuseynaya dhibaatada sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka dhulka iyo hawlahooda sidii sharciyadda loo waafajin lahaa ayaa socota oo ka guddi ahaan waxaanu wadnaa sharciga dhulkaanu wadnaa isaguna dhowaanna insha allah bidmillahi kariim uu soo bixi doonaa sharciga qabyo qoraalka ahi adeegyada kale ee bulshada ayaa ay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa wax weyn ay ka qabteen sida hirgelinta sariibado garoomo iyo wixii la mida runtii xagga sariibadaho kale markaan soo qaado sariibada qudhacdheer oo mashruuca jlbg-ga laga sameeyey waan dhammaystirnay sariibada koodbuur iyadana waanu dhammaystirnay waxaanu dibu habeyn ku wadnaa sariibada waaheen oo iminka hoolashii hilibka labana la dhameeyey labana iminka gacanta lagu hayo waxaa kaloo aanu iminka dibu habeyn ku sameynaynaa suuqii caanaha ee gobonimo oon u dhisayno suuq standard caalamiya la meelihii lagu falaxalanayay qofku markuu caanaha shubayo waa inuu falaxashaa waa inuu leeyahay biyo waa inuu leeyahay meelihii lagu kululeynayay caanaha iyadoo suuq caalamiya aanu ka dhigi doono inaanu iyagana sameyno xagga garoomada waxaanu dhisnay hal garoon oo garoonka xawaadla ah
haddana waxaa la wadaa hal garoon oo ku yaala degmada Axmed Macalin Haarun ilaa 7 stadion iyo 12 bilay garoonna waxaanu ka goynay dhulkii danta guud ahaa iyagoo intaanu banayno oo hagaajino aanu ku wareejin doono wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. dhinaca kalena waxaa garab socotay kala habaynta suuqyada sida goobaha ganacsiga istaamada iyo wixii la mida. hadda waxaanu bilownay inaanu istaamadii ka saarno magaalada oo aanu u saarno muxuu ahaa koonayaasha magaalada weli iyagoo gaadiid ku dhex gabanaya haddana suuqii way ka baxeen. taasi waxa weeye joogtayn iyo daba socod ayay u baahan tahay anigoo ku ammaanaya waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose iyo ciidanka taraafiga oo hawsha aad isaga xilqaamay. gaadiidkii waaweynaana waanu ka saarnay magaalada oo aanu koonayaasha gawaadhida raashinka hogtaa inay habeenkii soo gasho oo habeenkii hogaan gawaadhida u baxaya dibaduhuna in maalintii 1 saac markuu soo go'anayo alaabta uu qaadayo uu soo galo inta kalena ay dibadda ka kaabsadaan oo halka dadkuna ugu tagaan ay basaska raacaan. taasi waa arrin muhiim ah iyadoo basaskiina aanu kordhinay muxuu ahaa masaafadii ay tagayeen. gaadiidkana imika aanu wadno inaanu baakinadii lacagta ahaa bilowno iyadoo 2 meelood oo ugu horeeya ay ka bilaabmi doonaan cusbitaalka dhinaciisa galbeed iyo halka ay diyaaraddu saaran tahay ee muxuu ahaa santarka magaalada ee baananka hortooda. golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa sidoo kale hirgeliyay fidinta degsimooyin cusub oo ay ka hirgeliyeen koonayaasha magaalada taasi oo qayb ka qaadatay balaalinta magaalada iyo in dad badani oo muwaadiniinihii ay ka helaan guryo iyo dhul ay ku noolaadaan. hadda waxaa la dhameeyay 2 degsimo oo ah Ayax Foor iyo Digaale. Ayax Foor waa 300 iyo waxoogaa aqal ah dadkii wasaaradaha iyo dhex deganaa iskuulada iyaba laga horay. Digaalana waxaa loo horay barakacayaashii Maxamed Mooge iyadoo 800 iyo waxoogaa loo dhisay sandaqada ah. waxa weeyaan magaaladiina way fidaysaa dadkii danyartaana waxay heleen dhul iyo aqal ay iyagu leeyihiin. hadda waxaa gacanta lagu wadaa Jimcaale oo 145 ilaa 150 qoys oo ah kaydkii biyaha maadaama aynu biyihii ka shaqaynayno in halkaa dadkii kaydka biyaha dul deganaa loo raro oo halkaa ay degaan. runtii meelo kalena way jiraan oo hawshooda aanu imika wadno oo in degsimooyin cusub loo sameeya. عمرنا نقول شوية أنا كوجورنا أنا كودجنيه مر لبعض كنا ما نقدر نصرف كلا نصرف في عنه رصيد بلا هذا كل هين قال هين قيلا هين يعني ما بقينا هون لأن دينا كعريان كعدا شيء وانا هاي ما دعي وامر العلي كله مركا الدولة دينا هداي يمكن علينا نعاوننا إن الرئيس الدولة نصير الحمد لله مركا وحويان الحوينا أمريكي سر هذا عالم بيبنا أكثر ونوقف شو عنا koruqaadida dhaqaalaha iyo toosinta cashuuraha ayaa iyana waxay halboole u yihiin socodsiinta hawlaha golaha deegaanka. xagga dhaqaalaha si fiican baanu u kordhinay oo dhaqaalo badan baa dawladda hoose soo galay 2 sanadood waliba sanadkii dambe. taas waxa weeyaan cashuuro hore oo baaqday iyo dadka oo aanu ku nidhi cashuurtii baanu idinka daynaynaa boqolkiiba intaa haddii aad bixisaan dadkii cashuurta badan lagu lahaa. taasina waxay keentay iyaduna dakhligiida si fiican bay kordhisay
oo miisaaniyadda markii 24 milyan baan ugu nimi maantana dee dhowr iyo 60 ayay maraysaa. waxaan idiin sheegayaa dhiirigelin baanu samayn doonaa cashuur qaadaha dakhliga wanaagsan cashuur qaadaha iskoorka fiican maanta inaan kashaarka xidhan ee cashuur qaadii wuxuu huwayay sharaftii dawladda hoose ee Hargeysa ayuu huwayay dalku waa dawlad sare iyo dawlad hoose. nadaafaddu waa halbowlaha nolosha hawlgallada ay dawladda hoose ee Hargeysa ay qabatana kuwa ugu waaweyn ayaa qashin gurista iyo nadaafaddu ay ka mid yihiin culays badan ayaana golaha deegaanku arrintaasi iska saaray sida uu xusayo maayirka caasimadda Hargeysa. runtii mashruuca la yidhaha Triple B-ga Public Private Partnership oo ah inay lahaanshihii dadku dareemaan ayuu golihii deegaankeena ugu horeeyay bilaabay 4 shirkadood baan ugu nimid 4 shirkadood run ahaantii markaanu qiimaynay waxaanu ku nidhi degmadii waxa lagaga shaqayn karayaa 7 gaari markaanu waqti dheer siinay waxa ay noqotay inay 2 shirkadood oo kamid ay buuxin waayaan shuruudihii deedna aanu ka qaadno aanu xayeysiino intiinaanu anagu adeega dawlad hoose ahaan sii wadno shirkadaha ka baanu siinaa anagu aqal kastana waxaa laga qaadaa $5 dadweynuhuna waa inay bixiyaan taa qashinku waa aafo qaran sidii madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Sigaani oo ugu dhawaaqay runtii wuxuu u baahan yahay wacyigelin badan dadweynuhuna waa inay ka qayb qaataan haddaanu qofku kula dareemin haddii 25 deegaankaas iyaga haddii 1,000 qof ka shaqaynayaan haddii aanu ka qayb qaadan inuu qashinkiisa meel beersan dhigo oo uu u dhiibo intuu habeeyo u dhiibo shirkadaha waxa weeye lama nadiifin karayo magaalada ummadoo gacmaha soo qabsata qashinkana wax ka qaban karta waxa markaa runtii isbedelkaas keenay in goobo badan oo qashin ku tagi jiray oo illegal ahaa oo dadku si rasmi ah ugu wada marakacayaan oo meelaha qaarkood dumping sites moodi jirto ay maanta nadiif yihiin waxa kamid ah degmo walba waxaan jeclahay inaan meel ka yartaa taabto degmada Maxamuud Haybe Maxamed Mooge jaamac good dadka trade Maxamuud Haybe way garanayaan runtii meeshaas meel aad argagax u lahayd maanta waa nadiif Sheekh Shukri baa kamid ah waxa kamid ah Jarato birta dheer goobta xabaalaha ilaalada Maxamed Mooge future dabadiisa libaaxyada bootaan bariga seelida dhulkaasi guud ahaan waxa dhul aad qashin xad badan yaalo oo aan olole la daba joogi jiray olole kasta oo lagu qaadan hadana qash ku yiminay maadaama uu service ku dadka gaadhin marka Axmed Dhagax waxa iyaduna ugu daraa barka ayaa kamid ah digdigleeda habboon ayaa kamid ah waxa ku digdigleeda qurac dheer siinay ilaa October waxa weyn meeshii Al-Huda iskuulka halka ka soo horjeeda oo caruurta 9 mitir bi goobtaas u jirtay caafimaad darro dibna ku qabeen maanta waa nadiif runtii aad tagtaan waxa kamid ah Gacawle Xamdi iyaduna saasay u taxantay iyaduna 12 goobood 16 Juun meelaha ugu daraa xisbiga kamid ah oo dadku wada garanayaan waxa kamid ah beerta xorriyadda dabadeeda dhul noocaas oo iyaduna aan halkan ku soo koobi karin ba iyaduna halkan taxan koodbuur waa kadalik guud ahaan goobo ku dhow ilaa 40 goobood oo goobahaas wadaha goobaha ugu runtii nadaafad darrada badan caasimadda maanta goobaha lagu guuleystay ma oran karno markaa 100% magaaladu waa nadiif meelaha harsan baa jira oo ay dooxo ka mid yahay waxa kale oo hadda socda hirgelinta gurista qashinka dawooyinka oo ah hab gaar ah oo loo guraayo dawooyinka lagu isticmaalo goobaha cusbitaalada iyo wixii la mid ah marka runtii waxa iyaduna imika golahani ku guuleystay medical waste in collection gaar loo sameeyo company baa loo hire gareeyay u gaara oo runtiisna loo sameeyay waxaana nasiib wanaagay UN Habitat in mashruucii ugu horeeyay aan u gudbinay ay runtii iyaguna nagala shaqeeyeen agreement-kiina maayir ku saxay first installment-kii lacagta qalabka lagu soo iibinayay medical waste-kana runtii waa la soo daayay qalabkaasi wuxuu ka kooban yahay incinerators autoclave shredder needle burner waxyaalahaas oo runtii u gaara waxyaalaha qashinka medical-ka laga shaqeeyo oo lagu gubo maadaama iyaga aan disposal kan kale ay hazard ku tahay oo dhibaato ay ku keeni karto dawladda hoose ayaa waxa kale oo ay keentay gaadiid cusub oo ah nooca bajaajta ah iyo weel caagag ah oo waaweyn oo qaab isku lamaan u shaqayn doona kuwaasi oo wadooyinka halbowlaha ah ka soo guri doona qashinka salan sida caagadaha iyo waxyaabaha suuqa lagu dhex tuuro taasi oo wax ku kordhin doonta bilicda caasimadda Hargeysa
qaybta caafimaadka ayaa iyana si weyn u hawlgasha taasi oo ka mid ah isla waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose ee Hargeysa iyada oo la asteeyay tiimam amaba kooxa u gaara oo la dagaalama waxyaabaha expire-ka noqda amaba dhaca kadibna ka soo ururiya magaalada iyadoo dadweynuhu laftoodu qaarkood ay keenaan waxyaabahaasi ka dhaca ama expire-ka ka noqda si loo gubo waxa kale oo ay ka shaqeeyaan waaxdaasi caafimaadku amaba qaybta caafimaadku hawlaha haytiinta oo lagu kormeero hudheelada cuntada iyo caafimaadka dadka ka shaqeeya sidoo kalena waxay ka howlgalaan la dagaalanka dulinka marka aynu kaarka caafimaadka bixinaynaa oo marka aynu doonayno inuu ka shaqeyno caafimaadka dadweynaha qof hudheel ka shaqeynaya ama cunto ka shaqeynaya oo hilibkii googoynaya oo khudradii googoynaya oo koobabkii xalaya oo baladhadii xalaya dawaa inuu caafimaad qabaa haddaanu caafimaad qabin qofkii uu raashinka siiyey dawuu xanuunsanaya ama cuntadunbaa laga qaadaa xanuunka ama qofkii cuntada ka shaqeeyey uunbaa xanuunka laga qaadaa tani waxa weeye way xadidaysaa alxamdulilah waanu ku guulaysanay waxaan farayaa hudheelayda iyo shaqaalaha ka shaqeeyaba maalinbaa waxaa iman doontaa in hudheelka marka la soo galo haddii inanka ka shaqaynaya aanu haysan kaarkii caafimaadkiisa kaarkii aqoonsiga ee uu ku shaqaynaya aanu haysan inankana waxaa ku imanaysa dhibaata isagana ganaax baa ku imanaya sumcad xumada ayaa kaga daranaysa waayo uuna sheegi doonaayo mikrofoonkaan u qabsan waxaan hudheelka haddadaan caafimaad qabin baa ka shaqeeya baan odhan doonaa taana inaad ka faa'iidaysataan oo berri waxay noqon doontaa lacag oo qof walba lacag buu bixin doonaa qofka ugu shaqaynayo baana bixin doona lacagta caafimaadka lagu baarayo intii bilaashka tahay inaad ka faa'iidaystaan bilicda iyo nadaafadda jidadka ayaa iyana ah mid hawlo kale oo muhiim ah ku soo kordhisay magaalada iyada oo loo qoray shaqaale u gaara oo habeenkii si gaara ciidda uga gura waddada bartamaha ee caasimadda Hargeysa taasi oo aan hal habeenna laga habsaamin horaan uga soconay runtii markii golahan deegaanka cusub yimi waxyaalo badan baa jira oo aanu qabanay lama soo koobi karo waxaanu samaynay tiimam marka xagga qashinka aan dib ugu noqdo runtii dhulka xaadha oo habeenkii soo dhex gala dadkeena waad ogtihiino waxa ku adkaata inay soo kacaan xilliga shaqooyinka marka si taa looga guuro markaanu dhowr goor tijaabinay waxaanu samaynay markaanu ogaanay inaanay dadku shaqada imanaynin xilligeeda oo for example qofku doonayo mushahar u qaato oo hadhowna dee eri una ay noqonayso qofkii bedelun haddana bedeluna marka taas waxaanu xal u helnay inaanu qofka mushaharkiisa wax ka mid ah ku kafargaraynay alxamdulilah ilaahay baa mahad ku leh tii markaas waad aragteenoo habeenkii waa la xaadhaa streetka weyn ee magaalada Hargeysa saqdhex haddaad soo marto iyadoo la xaadhayo shaqadu ka socda habeenna ma habsanto waxaa kale oo maayarka caasimadda Hargeysa iyo golihiisa deegaanku ay imika hirgelinayaan nidaamka ishaarooyinka gaadiidka kala haga oo lagu xurayo iskoosyada muhiimka ah ee magaalada Hargeysa iyadoo ay tahay markii labaad ee ishaarooyin lagu xuro magaalada Hargeysa iyadoo waqtigii uu Hargeysa maayarka ka ahaa Cawl Cilmi Cabdalla uu ishaarooyin noocan oo kale ah sameeyay balse maanta ay wada burbureen maayarka caasimadda Hargeysa ee xilligan ayaa mar kale ku guuleystay in si habsami leh loo rakibo arrintaasi ishaarooyinkaasi oo lix iskoys aanu ku taagi doonno haddii ilaahay idhaahdo soolarna ah mid waliba streetkii aan ugu talagalay ku adkaskahaysan tahay sida halkaa nambaradooda ka muuqda waxaan leeyahay shacbiga iyo gaadiidleydiga caasimadda marada marka la xidho waa in loo hoggaansamaa oo la xaqdhowraa ishaaradu xaq ay leedahay muddadii xilka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo 2 sano iyo wax yar uun gaaraysa ayaa haddana waxa ay hirgeliyeen waxyaabo fara badan waxaa ka mid ah nalaynta jidadka iyaga oo markii u horeysay hirgeliyey laambadaha jidadka iftiimiya ee ku shaqeeya cadceedda amaba soolarka kuwaasi oo lagu xidhay qaybo ka mid ah jidadka muhiimka ah ee caasimadda Hargeysa mashruucan wataa laambadii koowaad la taagay wadada dhexe ayaa lagu taagayaa kuwii kalena inay yimaadaan baanu rajaynaynaa waxaan leeyahay shacbi weyn oo cashuurta bixiya cashuurtiina unbaa wax lagu qaban karaa shacbi weyn oo cashuurta bixiya marka intaasi oo dhan laga yimaado waxaa jira safarro caalami ah oo maayarka caasimadda Hargeysa ku-xigeenkiisa iyo weliba xubno kale oo ka tirsan golaha deegaanku ay ku tageen magaalooyin ka mid ah magaalooyinka caasimadaha dunida
sidoo kale maayaro iyo mas'uuliyiin kale oo dunida ka socota ayaa waxay magaalada hargeysa ku yimaadeen safarro kala duwan runtii waxay nooga soo kordhay laba shay oo faa'iida midi waxa weeyaan hargeysa weli hore umu iman maayir caasimadeed amba maayir magaalo weyn oo la aqoonsan yahay iminka maayirka jabuuti maayirka magaalada turko la yidhahdo finland ee caasimadii hore ah xogayaha fulinta ee stockholm intuba hargeysa way yimaadeen haddana waxaan filaynaa in maayirka addis ababa iyo kajuba iyo wufuud kaleba inoo yimaadaan oo mid political weeyaan midna waxa weeyaan xidhiidh iskaashi waxay nagala shaqayn doonaan master balaankii in la sameeyo oo 10 sanaba mar dib loo eego markaan wada hadlaynay maayirka iyo maamulaha wadooyinka korotootiga Addis Ababa ayaa waxay noo sheegeen in hadda ay marayaan 25% wadooyinkii looga baahnaa Addis Ababa balse ay sameeyeen qorshaha 57% wadooyinka la sameyn doono iyadoo aan markaa loo hayn dhaqaale cid kastoo timaada caawinaysan ay tusaan qorshahaasi runtii waxa weeye qorshe markaad samaysato ayaa laga caawin karaa ciddii ku timaadaaba ay ka caawin karto aana taqaano waxaad kala hadlayso waxyaabaha safaradaasi ka dhasha waxaa ka mid ah mataanaynta qaar ka mid ah magaalooyinka dalka sida magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale oo dunida ka mid ah maxaa faa'iido ah ee mataanayntaasi laga dhaxli karaa run ahaantii waxaa jira caalamka wax la yidhaha mataanayn caalamka horumaray waxaa had iyo jeer ka dhacda waxay la mataanoobaan caalamka horumarka ku soo socda sideenna oo kale deeto magaaladaasi waxay la mataanoodaan magaalada kale waxay ka qaadataa qalabka qashinka waxay ka qaadataa qalabka dabdamiska waxa ay u tababartaa shaqaalaha waxyaabo fara badan waxaanu isku taraygaraynaa safar kastoonu baxno ka fulin ahaan ka kula deegaan ahaan in aanu ku mataanayno magaalo kale awalan waxay wax ka tarasaa ictiraafka jamhuuriyadda somalilan oo dadkeenu yar iyo weynba waxa ay mar walba wadaan waa sidii somalilan caalamka loogu dhaadhicin lahaa maadaama inaa weli ictiraaf helin xagga ilaahay baynu ictiraaf ka haysanaaye kula rajo weynay inaynu heli doonno waxaanu ku ballan qaadi doonaa haddii ilahaydhaa faa'iidada aanu ka keennay inay dadku arkaan sidii horeba u arkeen waxaa kale oo jira mashaariic baanka adduunku uu wax kula qabanayo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa kuwaasi oo lagu horumarinayo adeegyada ay caasimaddu u baahan tahay lacaga fara badan ayaana loogu deeqay haddaba sidee ayaa loo qorsheeyey lacagahaasi baanka adduunka ay dowladda hoose ka helayso waa kalmaayirka caasimadda oo mar kale arrintaasi sharaxa hadda iminka waxaa jira mashruucii ugu horreysaynu samaynay wuxuu ahaa mashruucaan World Bank u gudbinay oo ah in qashinka waxna lagala qabto waxa la ogolaaday lacag $20 milyan $6 milyan waxay gelayaan biyaha 13 milyan kale waxoogaa capacity iyo waxa gelaya mooyee waxay gelayaan qashinka waxa ogtihiin dhulka aynu biyaha ka cabno meelo ku dhow in dam-site-kii qashinka qoyani ay biyahaasi ka durturaan in kolkaa dam-site-yadii iyo meelihii lagu kala saarayay iyo sidii looga faa'iideysanayay qashinkaa dib in intaba ay lacagtaasi inaga kafeyn doonto iyada oo qoladii expertka ahaayee hawshaa feasibility study-ga sameynayay ay hadda imanayaan dhowaan insha allah waxqabadka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ay ka fuliyeen caasimadda waa mid aan yarayn oo marka loo eego muddadii koobnayd ee ay joogeen sida uu ka dhawaajinayo maayarka xigeenka caasimaddu muddo xileedkayagii nala doortay in baa noo hadhay inna way tagtay intii tagtay hawshii aanu qabanay waa hawsha aad arkaysaan ee maragmadoonta ee taariikhda gashay ee leh wadooyinka aanu dhisnay ee leh biriishada aanu dhisnay ee leh waxqabadka muuqda ee aanu samaynay damdamiska aad aragteen qashinkiiyoonu magaaladii ka yaraynay aduu waxyaabo fara badan oo aan halkan ka soo koobi karahayn ayaanu qabannay
waxa iyana golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa uu ku hawlan yahay waxqabadyo cusub oo hor leh sida qaadka oo la rabo in magaalada laga saaro loona sameeyo ilaa 4 xero oo cusub oo ku yaala koonayaasha magaalada dhulka warshadaha loo xuray ee aan badankiisa waxba laga qaban ayaa iyana qorshe cusub lagu soo rogayaa dalalka dariska ah ayaa iyana loogu baaqay in ay maalgelin ku sameeyaan waliba dhinaca warshadaha ah magaalada hargeysa iyo guud ahaan dalka goobaha gaadiidka ayaa iyana hawlo iyo qorshayaal loo wadaa dhul cusub oo xabaalo loo asteeyey ayaa dowladda hoose iyana ay ku hawlan tahay sidoo kale daryeelka xabaalihii hore ayaa ah mid meesha ku jira dhinaca kalena dowladda hoose ee hargeysa waxa ay dirdirgeliyeen kamira dhalinta nidaamka maamul daadejinta iyadoo haddaba arrintaasi laga duulayo ayaa mas-uuliyiinta golaha deegaanka iyo kuwa dowladda hoose ee hargeysa waxay si isdaba jooga ay u sameeyaan kulamo iyo kormeero ay la yeeshaan mas-uuliyiinta degmooyinka iyo kuwa xayaha kala duwan ee dowladda hoose xogayaha cusub ee dowladda hoose ee hargeysa ayaa isaga oo arrintaasi sii adkaynaya haddaba waxa uu dhowaan kulamo noocaas ah uu la yeeshay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo weliba qaybaha ay ka koobantahay dowladda hoose ee hargeysa degmooyinku dee waa dowladda hoose oo yarun dowladda hoose xarunta fadhida oo la soo daadajiyo qayb ka mida magaaladii intoo lagu soo koobay idinkaa wax saaran marka waxa wanaagsan inaynu arrimaha inta badan halkiina ku soo dhammaysaan oo wixii aad dhammayn kari weydaan cudurdaar u haystaan inaad idinkoo soo raacinaya sababta yani arrinkaa u dhammayn kari weydeen inay xarunta soo gudbisaan laakiinse muranada iyo waxyaalaha xuduudiina kooban o dhan inay halkiina ku soo dhammaysaanoo annaga caawimo gacan naga soo weydiistaan haddii ilaah ka dhigo maayarka caasimadda hargeysa iyo golihiisa deegaanku waxay kale oo diyaariyeen dhul fara badan oo dan guud ah oo loogu deeqo hay-adaha amaba muwaadiniinta dalka ku soo kordhinaya mashaariicda horumarka keenaysa waxaanay arrintani taageero weyn ay u keentay golaha deegaanka ee uu hoggaaminayo maayar cabdiraxmaan maxamuud caydiid sulteelko intii yareeda 2 sannadood iyo waxa yar ahaydee uu golaha deegaanka maanta jooga uu hoggaaminayay maanta maayarka maanta caasimaddu intuu dalka ka qabtay iyo intuu wadooyinka ka qabtay iyo intuu iskuulaad ka qabtay iyo intuu dantii guud ee qarankan u ilaaliyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxa leeyahay caasimadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland maayar uu ku ogi waanu ku ognahay waanu ku haynaa ifkana waad ka heli aakhirana ilaahay waxaanu idin ka baryaa in miisaanka xanasaadka ilaahay ku daro